daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Waxaa jira su'aalo tiro badan ee isu weydiiyeen qaar ka mid ah asxaabta ku xiran janaalka Toosane. oo run ahaantii aan ka gaabsaday ka jawaabida su'aalahaasi iyo inaan muuqaal ka soo sameeyo. Aniga u baqayo in muuqaal aan sameeyay ama qoraal aan qoray darteeda lagu dhibaateeyo dadyo kale. Su'aalahaas waxaa ka mid ah sidee baa loo jabsan karaa Facebook qof kale uu leeyahay iyo sidee baa loo jabin karaa YouTube qof kale uu leeyahay iyo wixii la midka ah. Haddii aan muuqaal ka soo sameeyo sida loo jabiyo Facebook, muuqaalkaasna dadyo kale lagu dhibaateeyo, dadka geystay dambigaasi iyo aniga waxaan nahay kuwa u siman dambiga markaasi dadka kale laga galay. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo nidaam sax ah ay shirkadda Facebook uga shahay, balse bariyahan loo bedelay in si qalad ah loogu faa'iideysto. Waana sida haddii qofka uu geeriyoodo shirkadda Facebook loo ogeysiin lahaa in qofka account-kan leh uu geeriyooday, sidaana loogu codsado in account-kan ay istaajiyaan ama hawada ay ka saaraan. Marka sida saxda ah aan u fiirino, waa ay fiican tahay in qofka marka uu geeriyoodo account-kiisa Facebook ah hawada laga saaro si aysan murug ugu noqonin dadka markaasi uu ka geeriyooday. Sida cagsigeed, ma fiicno in qof nool aad ka gudbiso report dhimasho ah sidana Facebook aad ugu gudbiso hawadan lagu saaro account-kiisa ayadoo ay ku dheehan tahay xaasinimo. Muuqaalkan ugu faa'iideyso wadada saxda ah oo haddii uu geeriyoodo qof qaraabo ah ama qof saaxiibkaaga ah, Facebook waa u dirsan kartaa codsi in qofka Facebook-giisa sidoo kale hawada laga saaro maadaama asiga uu geeriyooday. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu tuso sida aad hawada ugu saari lahayd haddii qofka uu geeriyoodo account-kiisa Facebook ah aadna ugu codsan lahayd shirkadda Facebook inay hawada ka saaraan. Yaan war badan kugu daalin, ku soo dhawow muuqaalka. Marka aad doonayso in qof remembering aad request uga dirto, waxaad u baahan tahay inaad marka hore soo gasho application-ka Chrome oo taleefankaaga ku jiro. Kadib qaybta sare ee application-ka ayaa waxaad ku qoraysaa remembering request. Sida halkan ay ku qoran tahay ayaad markaasi taabanaysaa. Waxaa ku soo bixi doona linkiyo aad u tiro badan. Linkiga ugu horeeyo ayaad ku dhufanaysaa oo qaybta sare ah. Kadibna wuxuu noo soo gudbin doonaa wajhadan ama qaabkan. Markii aan qaybta hoos u soo degno, waxaad arkaysaa meesha aad ku buuxin lahayd account-ka qofka dhintay xogtiisa. Halkan sare waxaa kugu qoran who passed away, yaa dhintay. Meeshan waxaan gelinaynaa marka qofka dhintay magaciisa saddexan, magaca Facebook ugu qornaa ayaan qofka meeshan gelinaynaa. Intaa kadib halkan waxaa ku qoran sidaad u jeedid when did they pass away, goormuu markaasi dhintay. Waxaad marka halkan gelinaysaa taariikhda uu dhintay, tusaale hadda 2022 oo kale ayaad markaas taabanaysaa. Bisha oo ka dhintay ayaad markaas gelinaysaa. Halkaana maalinta ay ahayd. Haddii tusaale ahaan aadan aqoonin qofka taariikhda uu dhintay, waxaad samayn kartaa inaad qiyaasto ayaad meeshan geli kartaa. Kadib halkan waxaad gelinaysaa documentation of death. Sidaad u jeedid halkan waxaad gelin kartaa marka dokumenti ku saabsan qofka dhintay, haddii ahaan lahayd certificate ama shahaado dhimasho ah sida meesha ku qoran. Inkastoo anaga aanan lahayn shahaado dhimasho, qofka intoo dhintay waxa cadeynaya ma laha. Halkan marka waxaad gelinaysaa sawirkiisa iska geli oo marka meesha choose file ayaad taabanaysaa. Kadib wuxuu ku gudbin doonaa qaybta gallery ah ama qaybta fileska hadba meesha uu ku jiro ayaad markaas ka soo dalbanaysaa. Qaybtan ugu dambeyso waxaad gelinaysaa email sax ah oo lagala soo xiriira haddii codsiga la aqbalay iyo haddii wax kale ay jiraan. Qaybtan hoose ay markaas emailka ku buuxinaysaa. Kadib marka aad emailka saxsan geliso, halkan hoos waxaa kugu qoran dir oo ana hadda waxaa ii saaran Facebook-ka afka Soomaaliga ah, balse adiga wuxuu kuu soo qormi doonaa haddii uu English ku saaran yahay send ama dir. Kadib halkan dir ayaad taabanaysaa. Sidaa ayaa markaa ku dirtay requestigii qofka saaxiibkaaga ama qofka qaraabada markaa u dirtay. Waxaan rajaynayaa Facebook inay kaa soo aqbalaan, kadibna laga saari doono hawada qofka markaasi Facebook-gaasi leh hadduu markaasi dhintay. Ku mahadsanid daawashada. Fadlan haddii aad janaalka cusubta subscribe saar, lana wadaag asxaabta oo muuqaalka u share garay. Haddii aad muuqaalka heshay like saar. Inta aan ku kulmayno muuqaalka xigo, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.